ليس الجمال بأسباب تزينونه، إن الجمال جمال العقل والأدب. ليس اليتيم الذي قد مات والده، إن اليتيم يتيم العلم والأدب. بسم الله الرحمن الرحيم. halkan waa xarunta tala bixinta sharciyada nootaayo fiqi. maantay waxaan nootaayada ugu tala gashay in ay bulshooyinka Soomaaliyeed in ay la wadaagto raadinta muxuu yahay qaanuun, muxuu yahay cadaalad, wacyigelin cadaaladeed maxay ay tahay. su-aalahaas iyo su-aalo badan oo qofka isweydiinayo, bulshada ay isweydiinayso, ayaan doonaynaa inaan wax yar ka sheegno. sida aada la socotaan, qaanuun haddaynu ku magacaawno mise aynu ku magacaawno nidaam, labaduba waa isku macna. waa raadinta in la helo nidaamkaasna uu yahay in la raaco mid waajib ah, ay fulinayso jiha loo xil saartay waajibkaas taabagelintiisa. ummad walba waxay ku nooshahay sida ay u taabageliso ama ay u hirgeliso nidaamkeeda iyo qaanuunkeeda. haddaan u soo gudubno, waa maxay cadaalad? qof walba waxa uu leeyahay xuquuq, waxa lagu leeyahay waajibaad. haddii qofka way ka maqan tahay xuquuqdiisa, waxa u baahan yahay in uu u istaago isaga naf ahaantiisa mise cid kale oo aqoon u leh waa xuquuqdaas ka maqan sidii loo heli lahaa uuna u doonan lahaa xaqiisa. laanna xuquuqdu waxay ku taagan tahay waajibaad. tusaale ahaan, adiga waxaa lagaa rabaa waajibaad, waxaad leedahay xaq ayaa leedahay. haddii waajibaadkii lagaa rabay aada u istaagtay, waxway wax lagaa doonayo ma jiraan. laakiin qofka hadduu ka gaabiyo waajibaadkii saarnaa, waxaa loo baahan yahay in la helo hay-ad fuliso oo kasoo qaado qofkaas xaqi iyo lagu lahaa. sidaa daraaddeed, halkan oo ah xarunta tala bixinta sharciyada waxay u istaagtay wacyigelin bulshadeed in la helo dad aqoonyahan ah oo u kala saaro maxay tahay waajibaad, muxuu yahay xuquuq, talana ka siiyo hay-adaha ku shaqada leh arrintaas. mar walba waxaan u taagannahay sidii lagu hirgelin lahaa nidaamka, sidii lagu hirgelin lahaa helitaanka xuquuqda, iyo sidii loogu istaagi lahaa gudashada waajibaadka. taasi waxay u baahan tahay inaan dhammaanteen gacmaha isku qabsanno, aan isku kaalmaysanno, aan u istaagno hirgelintii sidii lagu heli lahaa. lagumana heli karo in la helo aqoon baahsan iyo wacyigelin bulshadeed ee ku saabsan ama ku aadan arrinkaas. sidaas ayay isku xil saartay nootaayo fiqi oo ah xarunta tala bixinta sharciyada. waxaan iisoo gudbinayaa arrinkaas anigoo ah Dr. ciise cabdiraxmaan, macallin fiqi, Dr. ciise fiqi. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
ليس الجمال بأسباب تزينونه إن الجمال جمال العقل والأدب